soo dhawaada daawadayaal magacayga waa Saciido waxaan ahay community health worker waxaan la shaqeeyaa Wellshare International. Wellshare International waa organization la shaqeeya caruurta dumarka bulshada sidee u qaadi lahaayeen caafimaadkooda ama uga shaqeyn lahaayeen caafimaadkooda. Wellshare wuxuu la shaqeeyaa dadka jooga ku nool gobolka Minnesota wuxuu kaloo la shaqeeyaa Tanzania, Kenya iyo Uganda. waxaan maanta kaloo ka hadlaynaa barnaamij la dhaho East African Smoke Free Program oo ah barnaamij ku cusub Wellshare. waxaa barnaamijkaas la bilaabay ama la aasaasay 2013. ujeedada barnaamijkan waxaa waaye sidii looga hadli lahaa ama looga wacyigelin lahaa bulshada Soomaalida khatarta ay leedahay sigaarka iyo sharciyaasha ka mamnuucaya in laga joojiyo dadka inay ku cabaan sigaar guryaha wada degan yihiin. waxaan la shaqeynay hadda ka hor sanadkan bilowgiisii siidar oo aan ka mamnuucnay in lagu dhex cabo sigaarka lagu dhex cabo sigaarka ama tubaakada guryaha la isla wada degan yahay. haddii aad wax su'aal qabtid programkeena wax su'aal ka qabtid waxaa soo wici kartaa fadlan numberka ah 612-230-3251 ama waxaa nagala soo xiriiri kartaa emailkeena oo ah easfp@wellshareinternational.org. waxaan kaloo leenahay Facebook page oo la dhaho East African Smoke Free Program nagu darso saa uga ogaatid waxaan sameeyno. waxaan kaloo nagala socon kartaa Twitter @EASFP. haddii aan wax yar kale ku daro barnaamijkan East African Smoke Free Program waxaan sameynaa waxaa kamid ah waxaan sida hadartan aan sameynayo waxaan ka hadalnaa TV-yada sida dadka nooga daawadaan wax ka bartaan tubaakada iyo khatarteeda. waxaan kaloo sameynaa outreach oo aadna moolasha Soomaalida ama meelaha Soomaalida ku ganacsadaan masaajidada aadna sidii aan dadka ugu wacyigelino dhibaatada khatarta leedahay ee bulshada ku leedahay. waxaan kaloo sameynaa newspaperka aan kusoo qornaa articles ama dhibaatada sigaarka uu leeyahay iyo waxyaalaha informationka arabnaa dadka siina si ay u bartaan sidee iskaga joojin lahaayeen ama iskaga ilaalin lahaayeen ama familygooda uga caawin lahaayeen in sigaarka khatartiisa ama dadka cabana sidee meelo uga heli lahaayeen ka raadsadaan caawitaan haday rabaan inay iska joojiyaan sigaarka. maanta wax yar waxaan ka taataaman doonaa ama ka hadli doonaa tubaakada noocyada u kala baxdo iyo khatarta ay leedahay qofka caafimaadka u leedahay. waa mahadsantiin. Saciido aad iyo aad baad mahadsan tahay. magacaygu waa Cabdilaahi Ganay waxaan program assistant ka ahay hay'adda Wellshare International. Wellshare International waa hay'ad caalami ah oo ka shaqeysa dalal kamid ah Africa iyo America. maanta waxaanu Saciido sheegtay dadka horteedana ay ka arki karaan waxaan ka hadlaynaa noocyada kala duwan ee tubaakada inta nooc ay u kala baxdo badanka tubaakada aan qiiqin. laakiin haddaan dib ugu noqdo showgeennii hore waxaynu ka hadalnay khatarta uu leeyahay sigaarku iyo guud ahaanba tubaakada qiiqda. waxaynu ka hadalnay in 7,000 oo qof 7,000 oo sumood ay ku jiraan sigaarka. waxaynu ka hadalnay in 250 kamid ah ay yihiin sun lagu dhinto. waxaan kaloo soo sheegnay in 69 kamid ay yihiin sumo in laga qaado kansarka. kiimikooyinka ku jira sigaarka waxaa kamid ah ammonia oo ah ta guryaha iyo musqulaha lagu dhaqo. waxaa kaloo kamid ah acetone oo cidiyaha ama rinjiga ay dumarku cidiyaha marsadaan la iskaga dhaqo. kiimikooyinkaasna caafimaadka aad iyo aad bay ugu xun yihiin waxayna sababaan cudurro xunxun. waxaan kaloo soo sheegnay in sanad kasta dadka dhinta 20% kamid ah ay u dhintaan cudurro ay sababtay tubaakadu. waxa kaloo aynu ka hadalnay in sanad kasta dalkan Mareykanka oo kaliya ay u dhintaan 443 oo qof ay u dhintaan cudurro la xiriira tubaakada. waxa kaloo aynu wax ka taabanay in qiiqa tubaakada la isku cabaa uu ka kooban yahay qiiqa ka soo baxaya sigaarka marka la shiday ama shiishada iyo neeftii qofka qaadanayay lagana qaadi karo kansar, laga qaado wadna xanuun, laga qaado qalal loona dhiman karo. waxa kaloo aynu ka soo hadalnay in 49,000 oo qof oo aan sigaar cabin ay u dhintaan sanad kastaba sigaar la waaga cabay. sidaynu showga hore ku soo sheegnay sida kaliya looga dheeraan karo sigaarka khatartiisu waa in sigaarka laga fogaado. sida kaliya looga fogaan karo ama dadka bildinada la wada degani ay uga fogaan karaana waa iyadoo laga mamnuuco bildinadaas oo smoke free laga dhigo.
maanta waxaynu ka hadli doonaa noocyada tubaakada oo kala duwan ta buuriga oo kale afka la gashado waxaynu ka hadli doonaa ta muxuu ahaye sigaarka yar la cabo waxaan kaloo ka hadli doonaa tubaakada milanta ee afka lagu rito sanaan oo kale ee ku dhex baabaada waxaana barnaamijkeena daadaahin doonta Siciido oo iga weydiin doonta su'aalo la xiriira tubaakadan ana wixii aanu research ka sameynay ama aanu ka ururinay ee xaqiiqooyin aan hayno ayaan idin la wadaagi doonaa waa mahadsantahay Cabdullaahi ku soo dhawow showga maanta waxaan ka hadlaynaa sida Cabdullaahi u dhahayba tubaakada iyo noocyada u kala baxbaxdo Cabdullaahi waxaan su'aal ka weydiiyo mid ugu horeysan ku weydiinayo waxa waaye soo u jeedinba daawadayaal tubaakooyin kala nooc ah ayaa miiskan saaran waxaan rabaa inaan ogaado tubaakada chew ama snus la dhaho waxay tahay waa maxay Siciido waa su'aal aad u muhiim ah inta aan laakiin ka jawaabin su'aasha waxaan rabaa bal inaan in yar ku daro hordhici hore oo ah tubaakadan aan qiiqin badanka sida kale loo isticmaalo ama afka la gashado oo buuri ahaan loo isticmaalo ama meel la iskaga dhajiyo ama electronic ka ah oo kala ha noqoto dhibka ay dheer yihiin sigaarka ama shishadu waxa weeyaan in lala isticmaali karo nooc kale oo tubaakada ah oo dadka badanka sigaar isticmaala chew tobacco kale sigaarkana way cabaan dadka isticmaala muxuu ahaye tubaakada milanto kale sigaarkana way cabaan marka qofkii waxa soo galaya laba nicotine buu qaadanaya taasoo jidhkiisa ku sababaysa inuu nicotintiisu ay aad u sareyso oo xanuun fara badan ku keeni karta cudurro badan laga qaado dhibka kale leeyihiin waxa weeyaan in ay leeyihiin ur udgoon oo soo jiidanaysa dhalinyarta iyo ciyaalka in qiimahooduna aad u raqiis yahay labadaas dhibood bay leeyihiin marka Cabdullaahi waxa dhahday dadka laba islaabi karaan ama sida u sheegtay snuuska ama sigaar laba qof isla isticmaali karaan marka kiimikadan waxay ka samaysan tahay isku waxba mise mid kasta kiimiko gooni ah ku jirto waxay dhamaantood waxay ka siman yihiin in nicotine ku jirto oo ah waxa tubaakada loo jeclaaday qofka uu qabatimo waxa kale oo ka siman yihiin in dhamaantood ay caafimaadka waxun yihiin waxay ka siman yihiin in dhamaantood ay ku jiraan kiimikooyin xun oo cudur laga qaado waxay kale dhamaantood ka siman yihiin in hadii la barto sida loo daayo ay adag tahay marka sababtan ku leeyahay waa la wada isticmaalaa waxa weeyaan waxa laga yaabaa qofka haduu sigaarka cabo inuu sigaarka kaliya cabo laakiin qofka haduu tan isticmaalo tubaakadan oo kale wuxuu la isticmaalaa kale sigaarkana wuu la isticmaalaa oo ma aha badanka kaligood lama isticmaalo ee sigaarka lagu daraa taasi nicotintii oo qofkii ku baatay keenaysa hadaan soo noqdo su'aashaadii ahayd waa maxay chew tobacco ama snus waa maxay waa tubaakooyin aan qiiqin waa tubaakooyin la gashado afka ayaa la gashaa sidii buurigii loo cuni jiro kala loo cunaa bishinta ama debinta iyo ciridka dhexdooda la galiyaa waxay ku chewgu muddo badan baa wadankan Mareykanka laga isticmaalayay laakiin snusku way nagu cusub tahay waxaana la sheegaa inay asalkeedii ka timid ama laga aasaasay markii ugu horeeyay wadanka Sweden Mareykanka qudhiisa waa lagu sameeyaa laakiin way kala yar duwan yihiin ta Sweden iyo ta Mareykanku waxaana badanka isticmaala dhalinyarada Soomaalida ma isticmaasho mise dhalinyarada good ma isticmaasho Soomaalida hadda dhalinyarada ma ku badan tahay snuska inay isticmaalaan xaqiiqooyinkan soo ururinay waa guud ahaan dadka Mareykanka ka isticmaala dhalinyarada Mareykan oo dhan nambarada aynu sheegi doono inta qof ay isticmaasha laakiin kuwan inagu la hadlaynay wacyi gelinayna waa dhalinyarada Soomaaliyeed marka waxa dhahday sida loo isticmaalo waxa waaye in faruurta hoosteeda la gashto si kale loo isticmaalo ma jirto snuska ama chew tobacco waxa loo isticmaalaa sida aan sheegay in muxuu ahaye la galiyo dibinta ama bishinta hoosteeda waxa ku kala duwan yihiin waa isku mid badanka chew tobacco iyo snusku chewgu waa tanna waa snus waxay ku kala duwan yihiin chewgu waxa halkan la galiyaa waa buurigii qalalan faruurta hoosteeda kadib waa la tufaa qanoof badan baa la tufaa laakiin tan uma baahnid inaad tufto snuga marka chemicalka ma la liqayaa waa la liqayaa jirkaaga galaysaa waxayna ku jirtaa bac yar bay ku duuban tahay tan snusku marka uma baahnid inaad tuftidba marka labadana waxay ka siman yihiin inay nicotintu aad iyo aad ugu fara badan tahay qatarta ee leedahay labadoodaba isku qatar ay leeyihiin mise way kala duwan yihiin qatarta caafimaad u keenaysa qofka waa su'aal aad u wanaagsan Siciido isku khatar bay leeyihiin waxay sababaan labaduba kansarka afka
waxay labaduba sababaan wadnaha oo dadka istaaga, waxay labaduba sababaan wadna xanuun kale, waxay labaduba sababaan stroke wax loo yaqaan ama qalal. markaa way ka siman yihiin. waxay kaloo sababaan kansarka ku dhaca mindhicirka. waxaana ku jira 28 kiimiko ayaa laga helaa oo dhammaantood kansar laga qaado. intaasay ka siman yihiin. waxay kaloo ku xun yihiin si aan soo sheegnay in lala isticmaalo sigaarka ama shiishada ama nooc kale lala isticmaalo badanka oo qofkii uu qaadanayo nicotine fara badan oo jirkiisii waxyaalo fara badan u keensanaysa. mahadsanid Cabdullaahi. waxay u egtahay inay juuga iyo snooska yihiin halis caafimaad daro u yihiin dadka dhalinyarada iyo dadka dhamaantood. marka waxaan rabaa inaan ogaado meeqa dad ayaa isticmaasho sanadkii ama bishii wadanka Mareykanka. lama oran karo bishii ama sanadkii intee qof ay isticmaasho, laakiin guud ahaan dadka isticmaalana marka la hayo wuxuu yahay 14% kamid ah ardayda dugsiyada sare dhigata gobolkan ay ku nool Minnesota way isticmaalaan snooska. 3% kamid ah dadka ku jira ardayda ku jira middle schoolka way isticmaalaan. middle school aad u yiri waxay taas ku tusaysaa caruur aad u yar yar. marka waxa dhahday dietol waxa dhahday flavor uu leeyahay ama ur fiican taas daraadeed miyay u isticmaalaan ciyaalka yararka ah. waxay maleynayaan miya nanac inuu yahay. nacnac uma maleynayaan garanayaan inay tubaaka yihiin, laakiin way soo jiidanaysaa. waxay u haystaan inay sigaarkii khatar yar tahay, waxay u haystaan inuu sigaarku qarmunaa laakiin kan ay udgoon tahay, waxay u haystaan in muxuu ahaayay ay fruit oo kale ama qiiqii fruitka cabayaan oo waxba yeelayn sidoo tufaaxa ama chocolate cunaa ayna waxba u yeelin. waxyaalahaas oo dhan bay aaminsan yihiin. marka kuwaasi waa ciyaalka yarar ee iskuulka dhigta ama caruurta middle schoolka iyo high schoolka dhigta. dadka waaweyn 1% ayaa isticmaala dadka ku nool gobolka Minnesota. waxa kaloo 8% dadka waaweyn isticmaala ah maaha dad aad u waaweyn, waa dad u dhaxeeya 18 jir ilaa 24 jir. waxay ka tusaysaa inay wali dhalinyar yihiin dadkaas. waa dhalinyarada college ku jirto iyo high schoolka. marka waxa kale oo inta ku haysid waxa kamid ah sigaarka yar yar ama little cigars wax loo yaqaano. ma nooga sheegi kartaa waxay yihiin ayagana? little cigars ama cigaros kuwa loo yaqaano waa laba muxuu ahaayay waa nooc sigaarka kamid ah oo sigaarka naqaanay nooc kamid ah weeyaan aan u eeg isagii laalaag. waa sigaarka halka ka arki kartaan package-kiisa. wuxuu sigaarka kale kaga duwan yahay wuxuu leeyahay flavor ama ur buu leeyahay sida strawberry oo kale ama muxuu ahaa chocolate ku haysid waxa waaye grape ku qoran ama grape ku qoran kanoo kale cherry ku qoran. marka waxay leeyihiin urti oo kale. qaar kamid ah sigaarkan yar yar ma laha buushka dambe ay leeyihiin sigaarka kale caadi loo yaqaan naqaan ma laha. qaarna way leeyihiin. labada midna laguma doorsan karo sigaarka oo lama oran karo kana ka waxtar yaro kana ka dhib yaro kana cabiya. waxay khatar u yihiin sidoo sigaarku khatar u yahay. waxa kaloo xiiso leh oo inaan sheega rabaa in sigaarkan dadka isticmaala ay u badan yihiin dadka badanka droogada iyo waxaas ay isticmaalo adu somehow ay ku xiran tahay droogada waaweyn droogada oo maxaa inta mar laga daadiyo buuriga ku jira in xashad lagu shubto in lala isticmaalo. waxa kamid ah ka sweet ka la yiraahdo kale waa sigaarka yar noocan uu kamid yahay ka hadlayno. marka dhibkaasi leeyahay iyaguna. sidee loo isticmaalaa little cigarska? ma sida sigaarka loo cabaa mise si gooni ah jirto oo little cigarska iyo cigarloska loo cabo? waxa loo isticmaalaa sida sigaarka loo cabo waa dab baa lagu shidaa halka afka hore kadibna waxa loo jiidaa sida sigaarka loo cabay. waxaana ku iman karaan baaki dhan iyo ku jira waxa ama iyagoo hal loo gadaana way jiraan oo ku jira muxuu ahaayay bac noocaas oo kala ku duuban. sidee buu qofka caafimaadkiisa halis ugu yahay little cigars ama cigarloska ma faahin kartaa? waxa su'aal aad u fiican. risikeen u sheegaynaana ama sababteen u sheegaynaana waa inaynu dadka la wadaagno miyay khatar leeyihiin, sigaarka la mid yihiin, miyay ka sii xun yihiin, miyay ka dhib yar yihiin. dadku sigaarka inta iska daayaan kan ma cabi karaan. marka wadna xanuun baa laga qaadaa, kansar baa laga qaadaa, sababka kansarka afka ku dhaca, ka cunaha ku dhaca, ka carabka ku dhaca, waxaas oo dhan baa laga qaadaa. waa mahadsantahay Cabdullaahi. waa arin fiican aan uga sheekeysay maanta. waxyaalo badan aan ka bartay. ani waxaan sigaar midka dheerka caadi loo cabaan u aqaanay waxaan wax inay jiraan ma ogeyn.
marka hadda waxaa jiro kale sigaar la dhahayo electric cigars ma noo sheegi kartaa waxay eegan yihiin haa way noo sheegi karaa inta aanan u gudbin electronic cigareska waxaan rabaa inaan ka hadlo ama sigaarka electronic ah waxaan rabaa inaan ka hadlo dadka isticmaala ardada high schoolka dhigto kale marka 4 meelood loo qaybiyo meelahan baa isticmaasha muxuu ahaayey sigaarkan ka sheekeyna hadda lira sigaarka ha boqolkiiba 7 dugsiyada dhexe ku jiraan ama middle schoolkana way isticmaalaan waxayna u badan yihiin wiilasha boqolkiiba 60 ka mid ah wiilasha dugsiyada sare ku jira ayaa isticmaala haddaan usoo noqdo su-aashaadii ahayd sigaarka electronic ah waa kan aad arkaysaan wuxuu u samaysan yahay sidii sigaarkii oo kale laakiin maaha sigaar lagu shidanayo dab waxa ku jira waa device ama qalab buu ka samaysan yahay uu ku jiro batterygaasaa dabka siinaya kaasaa kululeynaya muxuu ahaa tubaakadii ama nicotintii meesha ku jirtay markaa waxaa loo cabaya ama loo jeedaya sidii sigaarka caadiga loo cabi jiray waxaa laga helaa suuqaqa moolasha dukaamada waxaa kaloo laga gadan karaa online taasi waxaa katusaa in xitaa ay qof aan qaangaar ahayn ama sigaarka loo ogolayn inuu ka gadan karo computerkiisa intuu galo uu dalban karo sigaarkan ma ka raqiisan yihiin sigaaradii kale ama tubaakooyinka kasoo hadashay daytole mise waa isku qiimo electric cigarka ma odhan karno aad buu u raqiis u yahay laakiin sigaarka marka sigaarka kale hal mar markaad cabto kaa dhamaanaya kani ma dhamaanayo waad ku noqon kartaa soo saasuu uga raqiisay marka dhanka laga eego maqiiq buu leeyahay mise maadaama oo electric cigar yahay oo derbiga la gelinayo oo device wato waxaan rabaa inaan ogaado qiiq ma kasoo baxa markii oo la geliyay mise qiiq kama soo baxo waxaa kasoo baxa uumi marka biyaha dabka la saaro kale uumiga ay isu dayeen oo kale uumigaas oo kale kasoo baxa uumigaasi siduu sigaarkan kaleba uu leeyahay qiiqa agtaada lagu cabaa uu dhib u leeyahay hadduu qof sigaarka waaga cabo qiiqiisu caafimaadkaaga wuxuu yeelayo kansar ka qaadi karto aad u dhiman karto ayaa uumiga kasoo baxaya sigaarkana uu wax ku yeelaya aad u dhiman kartaa mana aha wax lagu doorsan karo dadka badanka waxaad maqlaysaa iyagoo leh sigaarkii baan si aan sigaarka iskaga dhaafo ayaan isticmaalaya kan ma shaqayso sirtaasi waxaa la ogaaday inay dadku kan bartaan isku cudur ka qaadaan ayna iska dayn karinna markay bartaan haddaa wax ku daro electric cigarka waxaan ku arkay commercialska dadka faaninayaan ama dad oo celebrities dhahayaan wuu fiican yahay taasna waa waxaan soo noo sheegtay maanta ma ka fiicno tubaakada ama sigaarka kale waa isku mid halistiisa ha badanka waa commercial badan baa laga soo dayaa iyadoo qofka sigaarka xayeysiinaya uu leeyahay aynu xornimadeena dib u helo wada ogta Mareykan laguma cabo meelaha la isku yimaado hoteelada kale meelaha soo muxuu ahaa maqaaxiyaha gaadiidka dadweynaha basaska kale markaad raacayso inaad sigaar ku cabto lama ogola sababta loo mamnuucay waxa weeyaan qiiqan ka soo baxaya adigun kuma dilayo wuxuu dili karaa qofkan kale isna aan cabinay ku ag jooga marka waxba kama jiraan waxa lagu xayeysiiyo waxa la xaqiijiyay in uu wax yeeli karo uumigiisu qofku gaadho uu wax yeeli karo sidee buu electric cigarka caafimaadka u saameynaya Cabdullaahi dhibaatooyin badan buu caafimaadka u leeyahay sigaarka horta uu inagu cusub yahay daraasado badanna lagama samayn waxaa ka mid ah dhibaha ilaa hadda la og yahay in qofka caba ay sanbabadiisu yaraadaan ay ururaan sanbabadiisu taasoo xanuun xun laga qaadi karo ama loo dhintaba waxaa kaloo la ogyahay sana kuu sheegay hadda qofka lagu aga cabaa laftiisu inuu u xanuunsan karo oo ka qaadi karo stillna waxaa ku socda weli daraasado badan oo lagu sameynayo marka in khatar badan uu leeyahay oo inaan ogeyn ay jirtana waa laga yaabaa waa mahadsantahay Cabdullaahi ugu dambeyntii wax nooga sheegi kartaa tubaakada milanta waxay tahay ama siday u yaqaanaan Amerikaanka dissolvable tobacco tubaakada milanta way noocyo badan tahay waa tubaako milanta waxay u samaysanaan kartaa noocyo aad u fara badan oo kala duwan waxaa ka mid ah waxay ku jirtaa waxyaalo noocan oo kale ah waxay u samaysnaan kartaa sida ul yar ama istakiinka oo kale oo halkaas ama sida findhicirka waad ku findhicilinaysaa tubaakana isticmaalaysaa wayna ku baaba'aysaa afkaaga waxay u samaysnaan kartaa sida nacnaca ama kiniinka oo kale iyadoo halkan ay taalaa saas oo kale afkaa lagu ridanayaa waa kadib way kugu dhex baaba'aysaa afkaagii waxay u samaysnaan kartaa sida badgekan yar oo kale oo carabka hoostiisa la gelinayo oo ku baaba'aya
noocyo kala duwan oo kalena way samaysnaan kartaa. tubaakadani qiiq ma laha, lamana tufo, muudkeedana waa la liqaa. mana aha wax lagu bedelan karo sidaan kuwii horeba u sheegay oo wax sigaarka ka sahlan. xanuuno fara badanna waa laga qaadaa. waa interesting waay tubaakadaas waxay u eg tahay waa mid meel kasta lagu isticmaali karo oona la ogeyn inaa cabaysa sigaar iyo tubaako sida maadaama ay afkaada ku milmeyso waxay u eg tahay xataa xanjooyinka ama mintiga baakada ku imaado ila eg tahay xanjo ama nacnacba u eg tahay. waxa kale waxa laga yaabaa oo kale inuu ilmo aad u yaray ama muxuu ahaayey uu barto oo uu ku cuno gurigooda isagoon waalidkii ogeyn because waxa istaa inuu nacnac cunayo. waana dhacdaa in badan waa lanoo sheegay ama waynu maqalnaa in mar dambe la ogaado in ay muxuu ahaa waxaana isticmaalayeen carruurtu ay tubaako tahay ee ayna nacnacba ahayn. marka sida loo isticmaalo waxaa dhahday waa carabka la gashtaa afkaada ku milmeysaa. afka la galiyaa waxayna ama diirka ayay ka galaysaa dheecaankeedu ama ciridka oo kale galaysaa markaa jirkaaga halkaas ka galaysaa ama dheecaanka liqaysa ku raacaysaa kadibna nicotine sida jirka ku galaysaa. waxayna sidii tubaakooyinka kale ay la wadaagtaa ee aan qiiqin ama noocyada kale tubaakada in sigaarkana lala isticmaalo tanna la isticmaalo kadib qofkii uu qaadanayo nicotine aad u fara badan taasoo sayna hore u sheegnay xanuuno aad u xunxun ku keeni karta. waa mahadsantahay cabdullaahi tubaakooyinka nooga soo sheekeysay dhammaantood waxay u eg tahay wax oo nagu cusub aniga igu cusub yihiin waxaan oo tubaako inay jirto ma ogeyn sigaar le u aqaanay laakiin waxaan ognahnay shiishada inay tahay mid aad iyo aad ayaamahan u noqonayso popular soomaalida dhexdooda qaasatan dhalinyarada. wax ma nooga sheegi kartaa shiishada waxay tahay iyo sida loo isticmaalo? shiishadu sida halkan ku arkaysaan waa daladan ina hortaala waxaa halkan biyaa lagaga shubaa waxa kaloo laga saaray halkan tubaakada lagu ridayaa dab baa lasii saarayaa kadib tuumbadana la nuugaya ama la jiidayaa si uu qiiqi kuusoo baxo. qiiqa badanka ku imanaya uu qoyan yahay ama uu qabow yahay wuxuu soo maray biyaha sababta loogu shubayna waxa weeyaan in loogu isticmaalo sida sigaarka buushka uu filter ugu yahay inay biyuhu kaa reebaan ay ku filter galayaan oo kale. ma biyaha reebayaan mise tubaakada reebayaan biyaha? tubaaka ma reebayaan filterka waxay reebayaan waxay adoo naqaska hawada ku imanaysa ayay soo kala shaandhaynayaan laakiin kaama reebayaan kiimikada ku xanuunsinaysay kaama reebayaan cuduradii laga qaadiyo dhan. markaa shiishadu tuubadan dheer bay leedahay waad saad arkaysaan markaa waxay ku xuntoo kale waxaa wada cabaa dhowr qof aa wada cabaa lagu wada cabaa badanka markaa wataa shiishadu. waxaa isticmaalkeeda u badan shiishadan dhalinyarada laakiin haddana waxay ku noqonaysaa popular dumarka in guryahooda ku cabaan waxaas marun ba waa dhibaato jirta marka soomaalida la eego badanka sigaarka waxaa u badnaa ragga laakiin waxaad moodaa shiishada inay dhinaca kale tahay oo ay u badan tahay dumarku. saynu ka ognahay magaalada ama magaalooyinkan mataana Twin Citieska loo yaqaano aynu ku noolnahay waxaad arkaysaa in laga furay baarar badan oo lagu cabo shiishada oo dhalinyaradii Soomaaliyeed wada tagayaan oo muxuu ahaayay ay isku baranayaan oo meel waxay noqotay social oo lagu kulmo oo la wada cabo oo qofka aan cabin ama habeenka sabtida oo kale tagin uu yahay qof ka dambeeya dhalinyartii kale oo cool ahayn. marka dhibaha badan bay leedahay. tubaakada waxa kale oo dadka ku soo jiidataa tubaakada lagu ridaya waxay leedahay ur udgoon oo loo qaadanayo inuu qofku cabayo tufaax oo kale ama chocolate oo kale ama wax la mid ah. marka dhibahaasay leedahay. haddaynu ka hadalno dhibaheeda caafimaadka u kaysan karto aad bay halis u tahay inay ka dhib badan tahay mooyaane kama dhib yara sigaarka. dhibaha xanuunada laga qaado waxaa kamid ah wadna xanuun, waxaa kamid ah cancer, waxaa kamid ah neef mareenka xanuun uu ku yimaado. waxaa kaloo halista kale leedahay waxaa kamid ah in qiiqa ku imanaya uu aad u qabow yahay ama qoyan yahay oo uu sanbabkaaga si qoto dheer u geli karo. dhibka kale ay yeelan karto waxaa kamid ah in dad badan ay wada isticmaalaan oo tuumbadan anaa jiidaya qofka ag fadhiya cabaya qof kale cabaya in xanuunadii kale marka la wadaagayo lagu kala qaado sida TB-dii, Jones-kii ama cagaarshowga wax xanuunka loo yaqaano. marka dhibahaas oo dhan bay leedahay. waa dhib aad iyo aad khatar u ah
soomaalida iyo dhalinyarada iyo dumarkana aad ugu badatay waxaana dhahay TB iyo jaundice iyo cudurada kansarka ah laga qaadaa maadaama la isla isticmaalayo aad iyo aad ay u xun tahay halkaadaan waliba si yara faahfaahiyo in kansarka iyada laga qaadaa laakiin TB-da iyada toos loogama qaado waa xanuunada ay faafin karto oo xanuunada faafo kale haddaad qabto oo laba qof wada cabaan de qofkan kalena uu qaadsiinaya marka waa dhib ay sigaarka dheertay because iyada aad baa la wada cabaa 5 qof 6 qof oo wada cabayda arkaysa waxaa jira qaar tuumbooyin halkan kule 5 leh tuumbo kale oo qof dhan ka fadhiisanayo oo la wada nuugayo qaar hal tuumbo kale leh oo qof loo markiisa afka gelinaya jirta marka dhibkaas ay leedahay halista ugu xun ay leedahayna waxaa kamid ah in amoodka laga qaadanayo ama xaddiga laga cabaya uu aad iyo aad uga fara badan yahay sigaarka waxaa la yiraahdaa halkii fadhi ee mar loo fadhiisto shishada waxay la micno tahay adoo cab ama leeg tahay adoo cabay 100 ilaa 200 oo xabo oo sigaar ah dad badan ay jiraan oo dhahayaan ani ii sheegeen tubaako ma cabno ama sigaar ma cabno laakiin shishada mar weekendiga cabnaa waxaan u maleeyaan kan inuu ka qatar yar tahay maadaama hal mar aadaysid meesha laakiin saada noo sheegtayba halkii mar oo fadhiisatid waxaa cabaysaa wax sigaarka 200 xabo sigaar ka badan in weegi qofka inuu cabo laga yaabaa in hal baakad sigaarka waa 20 minute ba ku jira haddii hal habeen tagto 100 xabo soo ay u dhiganto inta soo cabtay waa adaa 5 jeer baad ka badan tahay qofkii sigaarka cabay qatartaadana way ka badan tahay qofka sigaarka cabo soo shishada ma ka fiicna sigaarka way ka qatar badan tahay Abdullahi aad iyo aad u mahadsan tahay maanta wax badan ayaan ka baranay waxyaalo ani ugu cusub dadkana daawanayana aan u maleynaa inay ku cusub yihiin aan ka baranay aad iyo aad u mahadsan tahay soo dhawow magaceygana waxaa la dhahaa Saciido haddii aad rabtid inaad wax ka sii ogaatid barnaamijka East African Smoke Free Program saan hadday u dhahayba waxaa naga soo wici kartaa numberka 612-230-3251 ama email ayaa noo soo diri kartaa oo ah easfp@walshareinternational.org waxaan kaloo leenahay Facebook page aan rabno inaan kuligiin ku invite gareyno waxaana waaye pagekaas East African Smoke Free Program nagu darsada Facebookiina waxyaalo badan ayaan kusoo post gareynaa ay kamid tahay showgan hadeertaan hadduu xataa ku dhaafo lacala halkaas ka heli kartaa Facebooka meelahan outreach ka sameynayna ayaan kusoo qornaa iyo waxyaalo badan oo caawinaya adiga qoyskaada iyo bulshada Soomaalida mar labaad magacayga waa Saciido aad iyo aad u mahadsantihiin aad iyo aad baad Saciido mahadsan tahay dadkan la daawanaya aad iyo aad baad mahadsantihiin magacaygu waa Cabdilaahi waxaan labada iyadaaniya Saciidaba ka soconaa Walshare programka East African Smoke Free dhammaantiin aad baad mahadsantihiin intaan show kan oo kala isku imanayno nabadgelyo